نضيف ومدعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. خير وعافية عبد الرحمن. السلام عليكم. سلام كذب. كيف بدأ يتعاون حساب سنين على القلب. جارهانا كمان بشيء. أكتبوا متكرر وحل السواي. dalkan in doorasho ka dhacdo ama ugu yaraan laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka. runtii waxaan u aragnaa nasiib darro in gubashii fidsan extension la aado gobla fidsan laga soo tegay tii dhuusamareed iyo tii magaalada muqdisho tiilaba ama iyadoo taale weliba extension line waxaan aragnaa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo soo wajahday dalka Soomaaliya. dadka Soomaaliya waxay fududeynayeen in la helo doorasho heshiis lagu yahay oo keenta xasilooni iyo horusocod, laakiin nasiib darro ma muuqato. waxaan wada ognahay taariikhda dimuqraadiyadda ee Soomaaliya weliba dhowrkii sano ugu dambeysay kufkufkaada ama ordanka ahayd ee qora isku dhiibka ahayd iyo marxaladihii adkaa ayaa la soo marsay. waxaan wada ognahay marxaladihii ka horreeyay iyo dalkan wadda uu soo maray. marka in xilligan lagu dhiirado iyadoo la heli karo in laga heshiiyo doorashooyinka in lagu dhiirado extension waxaan u aragnaa ka leexinaysa qaranka meesha uu ku socday, isla markaasna muujinaysa xukun jacayl iyo kursi isku dhejis. waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku astaysneed 8 February 2 bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu jooga sharci la-aan madaxweynaha kursigiisa. haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci darro ah sameeyo. baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday. waxa kaliya maanta u furaya waxa waaye wadahadalkaas iyo gobasha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho nabad ah. dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filayno in waxaan dhici kara. insha Allah dad badan marka ay dhahayeen waxaas soo socda waxay u arkayeen inay tahay arrin suuragal ah, laakiin maanta waa taagan. laakiin waxaa isweydiin leh xaggee loo socdo 4 sano iyo goobo ayaa nidaamkan ka jira dalka. jid la xiro, dadkoo la cadaadiyo, xorriyaadkoo la qaado, awoodda lagu takfalo, intaasaa lagala kulmay. dadka Soomaaliyeed waxay dul qaadanayeen 4 sano dhammaaddan ku halaso waxay ku dul qaadanayaan arrintaas. si cadaan uga soo horjeednaa, waa diidannahay, waa sharci darro. waxaan u aragnaa ammaanadii loo dhiibtay dowladda oo ay la dhumeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha. ammaanadan ummadda Soomaaliyeed waa iska leh, cidna kuma takafali karto. marka waxaan leenahay hoggaanka dalka oo aan bartay soo noqon dad ilaa rushdi meeshaa ku socoto waa xaldin tahay. dalkaani waa dad jircan ma qaadi karo maanta extension. waa xaqiiq. dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin. dhinacooda haddii laga fiirso waxaan la soconaa dhaqaalihii dalka waa burbur iyo adihii mataqaanaa dowladda kulligood waxay barashar saarayaan ganacsatada
sidaas oo kale waxaa barasha la saarayo oo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan marka dulqaadka oo intaas la eg waxaa loo sameynaya waa jacayl annaga marka aan hadlayno uma jeedno qof gaara qolo uma jeedno waxaan ka hadlayno qarannimo shalay oo maanta iyadoo la iska celi karaa laga aamus meeshaad aragtayna dadkiisa maanta ma rabno tiyo kale inaan laado waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsano ka hor nimaado sharci ku tumashada waddada laga leexday ee khaldan inaan ka hor nimaado codkeenna si gaar u sheegno ma wadno wax dhibaateynaya qaranka bal waxaan wadnaa wax toosinaya qaranka xaqa aan leenahay soo hogaaminay ka soo shaqaynay haddana diyaar waxaan u taagannahay oo waqtigaan u soo jeednana inuusan qofna la dhuumin qaranka iyo masiirka umma qofkii raba madaxnimo waxaa loo ogol yahay inuu doorasho galo waxaa laga hadlaaya waa doorasho xura xalaal ah loo dhan yahay dalkan 30 sano lasoo dhaca ajnabi waxaa ku bixinaya madaxda Soomaalida intooda badan intay yimaadaan madax iska noqonaya iska baxaya laakiin waxaa nasiib darro in hadda meel kale nala sii aado hadda qofkii fursad haysta oo xalaal oo degenaansho keeni karta intaas markaan ka gudbo caawa waa 12 abril waa habeenkii ciidanka kale waa habeenkii ciidanka militariga waxay ahaaday horta anuu hambaliyayo anaa ugu hambalinaya magaca saaxiibaday hawsha qaran ee ay hayaan iyo difaaca dalka sugidda amniga ay ka qayb qaataan aad iyo aad aan ugu hambalinaya laakiin waxaa nasiib darro caawa in lagu soo aadiyo in ay berrito ay dhibaan ama shacab ay qora afka ka geliyaan oo xorriyadooda ay ku qaadaan aad iyo aad uga xun waxaan ognahay fadhiga ugu dambeeyey xildhibaanaa laga saaray baarlamaanka laga joojiyey waxaana loo adeegsada ciidamada qalabka sida marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waxay u dhiseen sharci waxaa loo dhisay inay ilaaliyaan sharafta iyo amniga iyo madaxbannaanida marna looguma talagelin in lagu qaado xorriyad in lagu marooqsado xukun marka waxaan u baaqaynaa dowladdu amaro khaldan ay bixinaysa iyadoo waqtigeeda oo jiro waa loo soo dulqaatay iyadoo waqtigeeda dhammaaday inay amaro khaldan bixiso oo saraakiisha ciidamada u hoggaansamaan waa dembi aad iyo aad u weyn waana qarankiisuna ay ka qayb qaadanayaan waxayna ka leexanayaan hadafkii wanaagsanaan oo loo aasaasay ciidanku waxay oggolaadeen naftooda waxay oggolaadeen waqtigooda waxay oggolaadeen dhiiggooda waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga Soomaaliya waxaa la socotay ayadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu boodo qayb ka mid ah qaybna magaalada daafeeda Muqdisho oo ku dhammaanaya oo ku dacdaraysan yahay marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la baneeyo iyo qayb ciidanka ka mid ah taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka militariga waxaan ugu baaqaynaa saraakiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga inay hoggaansamaan sharciga dibna u fiiriyaan waxba asaas waxaan rabaa inaan u gudbo shacabka Soomaaliyeed joogaan annaga marna uguma yeerayno wax qarankaan dhibaataynaya dadka laakiin waxaan ugu yeerayna waa in la ilaaliyaa sharciga marka waxaan leenahay dowladdu waxay ka leexatay sharcigeedii waxay ka leexatay sharcigii waxay ka gudubtay maandeedkeedii waxay ku fadhidaa sharci darro haddana waxa ay samaynayso waa sharci darro marka waxaan leenahay dhammaan aan difaacno sharciga aan ku wada joogno waa sharciga in la difaacana waa muqadas maxaa yeelay jiritaankeena ku xiran ummadda waxa ay ku heshiisa waa inay fulisaa marka annagoo heshiiskaas qaran ee ahay 4 sano madaxweynaha marka la qaaday xilligiisu inuu ku dhammaanayo 4 sano in la ixtiraamo waxaa loo ogol yahay inuu ka shaqeeyo hormuud ka noqdo dalka doorasho inay ka dhacdo laakiin nasiib darro ma dhicin ma raba inaan aad u dheereeyo hadalkayga laakiin
runtii waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay dareenkaas nala wadaagaan maxay ahaato kulligooda ay og yihiin macnaha ay ku fadhido in la ilaaliyo sharciga dhibaatada ka imaan karta sharcigan laga digo bani aadamku marka khalad oo gale laga aamuso khalad kale gale laga aamuso u qaataa inuu saxan laakiin ma saxan dadka Soomaaliyeed iyagoo arkaya ayay aamusnaayeen sababta ugu weyn waxay ahayd in la helo marxalad kala guur ah oo dadku codkooda ay dhiiba karaan waxaa laga hadli jiray muddo dheer one man one vote ama one person one vote taas iska daa hadda waxaa la leeyahay tii lagu heshiiyey waxaad ogtay midowga murashaxiinta heshiiskii ka dhacay uusan rab iyo kuwii ka dambeeyey xamad ka dhacay la soo dhaweeyey qaybna kama ahayn waxaan u muuqda dulgaleelo fara badan intaasna waxay ahaan in la sahlo kulasho haddana waxaa dhacaya maanta waxaa arkaysi marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ciidamada qalabka sida shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka inay warkaas dhageystaan aad iyo aad madaxweyne intaadan ka bixin baarlamaanka kulamo ay hore u yeesheen waxaa laga hadlayay in muddo kordhin ay sameynayaan laakiin ma dhicin marka caawa hadalkan matuunadii hore la xiriiraa mise wax xaqiiqa oo aad haysaan jirta waa maxamuud soo faysane oo 5 TV ka tirsan mahadsantahay loo joogaa waa ma